maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxayne mugdigii ka maydhay. bismi illaahi raxmaan iraxiim. dhegaystayaal iyo daawadayaalba waxaan xiisadda koowaad fisigiska waxaan ku bilaabaynaa jabtarka 7 magaciisa waxaa la yidhahdaa waves waa jabtar 7 buuggeenii hore ee aan revisinka lagu samayn ama la edhidgarayn wuxuu yahay bage 105 bage 105. buugga labaad ee editinka lagu sameeyeyna waa bage 123. labada buugba midka aada haysato ayaad kala socon kartaa casharkan. kow waxaan ku bilaabaynaa jabtarka objectiveskiisa ama ujeedooyinka asaaska uu jabtarku leeyahay inaga oo su-aala kaga jawaabayna. number 1 waxaynu isweydiinaynaa waa maxay waves. what is a wave? what is a wave? laba, how does or what causes a wave? causes a wave. saddex, what does a wave carry? a wave carry. afar, how does a wave travel? inaga oo ka duulayna objectiveska cashirkeenu leeyahay ayaynu ka jawaabaynaa afartaa su-aalood. objectivesku waa meesha laga rabo ardaygu marka uu cashirkan dhigto in su-aale ay ka imanayaan ama wax laga weydiiyo ayaa objectiveskii ama ujeedooyinka laga leeyahay jabtarka waxay ku qoran yihiin buug. labada buug midkaad haysato kii la revise gareeyey ama kii la edit gareeyey waa 123. buuggeenii hore ee first editionka ahaana wuxuu ka yahay 105. labadaba midkaad haysato dhegaysta ama daawade ayaad bageka ka bilaabaysaa. first waxaan ku bilaabaynaa definitionka ay leedahay wave. waxaan leenahay a wave is a disturbance that carry energy. waveka waxaa la yidhaahdaa waa maxay wave? markaaynu ka jawaabayno waxaan leenahay waveku waa dhaqdhaqaaq ay abuuraan walxo kaasoo qaadaya energy. wave is a disturbance that carry energy. laba, si kalaad u sharxi kartaa. mar labaad waxaad odhan kartaa a wave is a process that in which
energy is the process in which energy transferred from one place to another, from one place to another, without movement, without moving particles along them. Wave-ka mar labaad waxaad ku sharaxi kartaa ama ku tilmaami kartaa wave waa process lagu gudbinayo energy isagoo oo lagaga kaxaynayo meel lana gaadhsiinayo meel kale isagoo oo particleska ama aw dhex maraya tamartu ayna samaynayn wax dhaqdhaqaaqa. Si labaad si fudud oo ka gaaban waxaad odhan kartaa wave-ku waa disturbance xambaarsan energy. waxaan odhanaynaa mar labaad wave-ka waxa ay gudbiyaan ama xambaarsan yihiin energy. waayo haddaba markaan chapterka sidii soo bilowno aan ku bilowno introductionka uu leeyahay waxaan leenahay wave is energy carry disturbance. Wave is energy carry disturbance. si labaad baad u define garayn kartaa waxaad odhanaysaa wave waa process lagu gudbinayo energy isagoo oo laga kaxaynayo meel lana gaadhsiinayo another position, ama ha noqdo information energy-ga la gudbinayo ama ha noqdo tamar kale oo sida light-ka ama sound-ka ha noqdo. waa tamar meel laga kaxaynayo lana gaadhsiinayo another position. Wave ma hab saddexaad u qeexi karto waxaad odhanaysaa dhegaysta ama daawade wave-ku waa disturbance ay si xambaarsan energy isagoo oo dhex maraya through the matter or the space or vacuum. labada waad isticmaali kartaa. all wave are produced by the something that vibrate. wave oo dhan waxa soo daaya ama abuura walax samaynaysa gariir. all wave are produced by something that vibrates. wave oo dhan waxa ay ka timaada ama ka abuurantaa walxo samaynaya gariir. waaye waxa haddanaba timaada markaa some waves need a medium to transmit or some wave needs a medium to travel. wave-ka qaarkood oo wave oo hir noqonaya markaa luqadeenna hooyo wave-ka waxay qaarkood u baahdaan medium oo sii dhex maro, halka while other can move through the empty space known as vacuum. halka qaarkood ayna u baahnayn medium ay sii dhex maraan ama sii gudbiya. waveska haddaba u baahan mediumka ama materialiska ay ka gudbayaan ama sii qaada ama ay u baahdaan inay sii dhex maraan waxa loo yaqaanaa mechanical waves. nuuc kasta oo ka mida wave-ka oo u baahan particleska ama u baahan medium ay sii dhex maraan waxa loo yaqaanaa mechanical waves. tusaale waxaa inoogu filan sound is a wave that need a material. soundku waa wave u baahan medium au sii dhex maro. markaan leenahay medium means waa materialiska gudbinaya soundka ama codka. sidaa darteed haddaba wave-ka laba ayaynu u qaybin. number one waxaan leenahay wave u baahan medium au sii dhex maro waxaa la odhanayaa markaa mechanical waves. another this type of wave cannot pass through the vacuum. wave-ka mediumka u baahan kama gudbi karo hadday meeshu noqoto vacuum. for example jabaqdu ama soundku ama codku waa wave, waa qeybta loo yaqaano mechanical wave.
haddii adigoo gaari ag taagan for example gaariga intaanu damage badan gaadhan uu cusub yahay haddii aad dibadda istaagto oo muraayadaha lagaa dalaco dhawaqii aad u baahnayd gudaha uma gudbayo means the empty space hadday meesha timaado oo double glasska dhexdooda quraarada daaqada lagaa xidho spacena uu meeshii yimaado without particle ma gudbayo codkaagii means soundku haddii uu la kulmo meel vacuum oo ama without particles markaa ma soconayo ama ma gaarayo meeshii kale qaybta waveka ee u baahata markaa medium ay kasii gudbaan waxaa la odhanayaa mechanical waves laba qaybta labaad waves that do not require a material or medium to transmit waxaa la odhanayaa electromagnetic waves waveska aan u baahnayn medium ay sii dhex maraan ama medium ay ka dhex gudbaan waxaa loo yaqaanaa electromagnetic waves sida aad ku soo aragtay fasalkii saddexaad ama dugsiga sare chapterka loo yaqaanay electromagnetic waves wavekaasi electromagnetic wavesku uma baahno medium au sii dhex maro tusaale waxay noo ah light waves iftiinku ama nuurka ka yimaada cadceedda ee aynu daily u baahan nahay ee plantisku u baahan yahay uma baahna medium au kasii dhex gudbo marka leeyahay electromagnetic waveskaasi waxay ahaayeen 7 electromagnetic wavesku waa 7 mid waxaa ka mid ahaa radio waveski waxaa ka mid ahaa gamma rayski waxaa ka mid ahaa x-raygi waxaa ka mid ahaa ultra waveski 7 mid baa ku yaalay fasalka saddexaad oo chapterkaasi ka hadlayay way they travel in vacuum iyagu marka la leeyahay waveka aan u baahnayn medium ay ka gudbaan markaa waxaa la odhanayaa wavekaasi they travel through a vacuum wave motion waxaan leenahay wave motion socodka ay samayso waveku ama hir socod baa la odhanaya hir socod wave travel and transfer energy and information from one point to another waveku maadaama ay sido ama xambaarsan tahay energy ama tamar ama information oo warbixin ah oo meel ka qaadayso meel kale geynayso the particles of the medium are vibrating about fixed positions particleska mediumka uu sii dhex u leeyahay ee mediumka ay sii dhex marayso ida inuu noqdo mediumku solid inuu noqdo liquid iyo inuu noqdo gas mediumka ay waveka ka gudbayso particleska uu ka sameeyay not move iyagu waa fixed vibrate halka ay taagan yihiin bay gariir ku sameynayaan tamartii loo soo dhiibay particle ka ku xiga ayuu halka ugu gudbinaya marka waxaan leenahay wave travel and transfer energy and information waveku waxay gudbinaysaa tamar iyo warbixin labadaba iyagoo ka kaxaynaya from one point to another the particles of the medium are vibrating about fixed position either inay sameeyaan up and down iyagoo bartooda ku gariiraya kor iyo hoos ama ay sameeyaan horay iyo dib to and fro labaha bay isticmaalaan wavekaasi markay gudbayaan particlesku ay gariir ka sameynayaan at fixed position mar waxay u gariiri karaan kor iyo hoos labadaba marna waxay u dhaqaaqayaan horay iyo dib waveskaas particleskoogu mediumka ay si dhexmayaan particleskiisu ay u gariirayaan kor ama hoos ama hore iyo dib si ay energy ay sidaan ugu gudbiyaan particle kale the movement hadaba dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan particleska mediumku kaas oo uu sababay disturbance-kii lagu abuuray marka hore ee xambaarsan energy-ga ayaa waxa loo yaqaanaa wave motion wave motion is the movement of the particles or the movement of disturbance that carry energy from the source labadaba waa la odhanaya wave motion means waxa la micno kale progressive wave is a result of repetitive pulses and medium or the space way a single wave or hal hir marka la leeyahay oo xambaarsan tamar waxa loo yaqaanaa pulse of wave. A pulse is a single disturbance that transfers energy from one place to another. For example, the figure below shows a single wave.
single pulse that carry energy. saddex sawirkaasi marka koowaad particleska u horeeya markay u gariiraan up and down tamartii ay xambaarsanaayeen waxay u gudbinayaan another particle kale particle-ba particle-ka u gudbinayo ilaa meeshii tamartu ay gaadhaysa ay gaadho. second tusaale waxay noogu filan haddii aad soo qaadato dhagax oo aad soo dul istaagto meel biyo fadhiisina ama biyo ku jiraan adigoo haysta dhagax say dhagaxa haddii aad ku tuurto biyaha markuu dhagaxu biyaha hidgareeyo wuxuu abuurayaa disturbancekaa dhagaxu samaynayaa waxaa dhalanaya markaa hir wave baa la odhanaya markaa iyaga oo dhaqdhaqaaqaasi u gudbinaya hareeraha u dhaqaaqaya markaa way real example buu noqonaya kaa tusaalaha caadiga adigoo gurigaagii jooga ayaad soo qaadanaya weel yar haddii aad ku dhufato dhagax yar ku tuurto biyahaas waxaad dareemaysaa dhagax yar disturbancekaa uu sameeyey sida sawirkan kaaga muuqata wiil baa wuxuu ku tuuray dhagax biyo halkaa yaala waxaa samaysmay layers markaa layers that means layerskaas waxaa midna la odhanayaa truth midna crust meesha high beaka waxaa la odhanayaa crust meesha low beaka noqonaysana biyihii maadaama tuuro iyo socod ay isku darayaan iyagoo energyga gudbinaya means energyga adiga kaa soo baxay ee biyaha dhagaxa ku isticmaashay dhagaxii tamartii wuxuu u gudbiyey biyihiina waxay ku gudbinayaan as a wave way wavekaas dhaqdhaqaaqu marka la leeyahay characteristics of the wave motion socodka wavku hirku socodka uu sameeyo characters waxaa noogu filan ama astaamaha uu yeelanaya waxaa ka mid ah kow wuxuu xambaarsan yahay energy they carry energy from one place to another laba waxaan leenahay particleska energyga particleska mediumku ka samaysay energyga qaadaya iyagu wax dhaqaaqa ma samaynaya because they vibrate about fixed position way types of wave marka si guud waveka loo dul taagan yahay marka waveka si guud loo dul taagay in general wave can be divided by in two groups in general waveka waxaa loo qaybiyaa laba group oo kala ah mechanical iyo electromagnetic waa halkii horaan kusoo aragnay eenu kala saarnay waveka qaybta u baahata medium ay ka gudbaan waxaa loo yaqaanaa electromagnetic waveka qaybta u baahan mediumkii ay dhex maraanna waxaa la odhanaya mechanical wave qaybta aan u baahnayna waa electromagnetic wave mar labaad wavekii waxaa loo kala saaraa types of wave baa la odhanaya waveka waxaa loo qaybiyaa laba group iyagoo loo eegayo according to their motion socodkii waveka ay samaynaysa iyadoo loo eegayo wave can be divided by in two groups number one waxaa la odhanayaa longitudinal wave longitudinal waveku muxuu noqonayaa markaa longitudinal wave is a wave that vibration particles vibrate parallel to the direction of the wave waa waveka particleska ay dhex marayaan gariirka u sameeyaan dhinacii waveka u socotay iyo dhinaca particleska u gariirayaan ay same direction yihiin waxaa la odhanayaa waveka marka la tilmaamayo longitudinal wave waa waveka dhinacii waveka u siday energyga means for example haddaynu naladiisa direction of wave dhinaca waveka u socdo haddii ay tahay dhinaca midigta for example dhegayste wavekuna waxay particlesku u gariirayaan means same direction iyagoo samaynaya to and from forward and backward waxay u gariirayaan horay iyo dib means marka leeyahay longitudinal wave waa waveka particleska ay dhex marayeen iyo dhinaca energyga loo sida labadaba ay u gariiraan same direction baad odhan kartaa ama waxaad leedahay waa parallel waxaa leenahay longitudinal wave is a wave that vibration particles are parallel to the direction of wave motion in another word mar labaad waxaad odhan kartaa the particles in the medium vibrate to and fro means forward and backward horay iyo dib particleska waveka ka gudbayay gariirka ay sameeyaan ay u dhacdo horay iyo dib kuwaasoo abuura
meelna particlesku inay noqdaan very close loona yaqaano compression meelna particlesku ay noqdaan inay kala durdurugsan yihiin loona yaqaano rarefaction means meelna waxaa dhacaysa expansion meelna waxaa dhacaysa contraction in samee particleska contractionka iyo rarefactionka waxaa maamulaya mediumka ay dhex marayaan means meelna haddii codku dhex marayo for example hawadeennan oo hawadu meel ay tahay high pressure meelna ay tahay low pressure pressurekii saameynayey mediumkii uu sii dhex marayay wuxuu noqonaya meelna inay compress samayso meelna inay particlesku ay kala durdurkaan waa kan tusaale halka waxaa yaalla springka marka gacantaada aad sidaa ugu bushkarayso horey iyo dib spring haddaad forward iyo backward u bushkarayso horey iyo dib means waxa kuu soo baxaya in springku meelna uu isku ururo meelna uu kala durugsan yahay meesha uu isku urursan yahay waxaa la odhanayaa compression means way isku soo dhawaadeen gariirka particlesku iyaga oo positionkoogii mid walba uu taagan yahay laba meelna particlesku way kala durdurugsan yihiin iyago meesha particlesku kala durugsan waxaa la odhanayaa rarefaction meesha particlesku ay isku dhowdhow yihiinna waxaa la odhanayaa compression waxaana lagu kala qoray c iyo r macnihii cdu waxay u taagan tahay compression rtuna waxay u taagan tahay rarefaction longitudinal wavesku waxaa mar labaad loo sawiri karaa formkan means wavekii oo u socday directionka forward horay directionkii waveka oo ahaa particleskii energygu dhex marayeyna waxay u gariirayaan to and from means particleskaas meelna waxay noqonayaan very close vibrationkoogu iyaga oo fixed position ah meelna particlesku way kala durugsan yihiin meesha ay kala durugsan yihiin waxaa la odhanayaa means rarefaction meesha ay isku dhowdhow yihiinna waxaa la odhanayaa compression means formkaa labaadna waa loo sawiri karaa marna c iyo r iyadoo ay labadiiba ku muujisan yihiin meelna particlesku waa very close meelna particlesku way kala durdurugsan yihiin marka examples of longitudinal wave marka la tilmaamayo tusaale waxa u ah number 1 oo maskaxdaada aad ku qortaa inay ku soo dhacdo haddii wax lagaa weydiiyo longitudinal waveska in soundku uu yahay longitudinal wave waxaa kaloo ka mid noqon karaa springer haddaad horey u bushkaraysay dib isna waxaa la odhanayaa as longitudinal wave sawirkan hoose tusaale the figure below shows how the sound wave travel from the source to the receiver qof baa kula hadlaya radioga dhegeysanaysaa cod ka soo baxay radioga codkii ka soo baxay iyo dhegtaada soundku wuxuu soconaya qaabka means meelna waa compressed airta u dhex marayo meelna waa rarefaction oo ay kala fogfog yihiin propertieska uu yeelanayo longitudinal wavesku marka la yiraahdo laba siyoodba waa loo kala muujiyaa mar waxaad muujinaysaa markaad longitudinal waveska wax ka sheegayso ama aad tilmaamayso inaad sheegto propertieskiisa marna longitudinal waveska waxaad wax ka sheegaysaa adigoo isticmaalaya modeling means as a pictures oo marna muujinaya meel compress meelna ay muujinayso rarefaction marka as a propertieskiisa aad tilmaamayso symbol waxaad oran kartaa propertieskiisa waxaa ka mid ah longitudinal waveska particleska mediumka uu dhex marayo waxay u gariiraan means directionkay u gariirayaan iyo directionka energyga wavekuu sido labadaasi waa same direction baad oranaysaa number 1 number 2 they form compress or rarefaction means marna waxay abuuraan ama sameeyaan meel particlesku waa very close meelna particlesku waa ay ku kala durdurugsan yihiin waxaa kaloo lagu muujin karaa lagu sheegi karaa propertieskiisa lama jihayn karo they cannot be polarized means longitudinal waveska jiha lama jihayn karo meel wada mara lama odhan karo means waveka markaan tilmaamno typeska laba type baynu ku sheegnay kii labaadna waa kan markaa transfer wave baa la odhanaya midna waa longitudinal wave isagoo loo eegayo waveka socodkeega midna waxaa la odhanaya waa transfer wave waa kan transfer wave a transfer wave is the wave that vibration particle vibrate at right angle to the direction of wave waxaa la odhanayaa transfer waveku waa waveka particleska ama mediumka u dhex maraya particleskiisu iyagoo oo bartoodii fixed position gariir ku sameynayay ay la direction noqdaan ay ku noqdaan perpendicular means dhinaca ay wavekaasi u gariirayso
direction of the wave. haddii waveka directionkiisu yahay forward means directionka gacantaada midigoo kale xagga hore hadduu socdo sidaa darteedna directionku haddii uu noqdo inuu yahay forward inuu yahay ama horay u socdo directionka wavekaagu kadib wavku dhinacii u socday oo horay iyo directionka wavekaagu ay gariirka u samaynayaan waxay isku noqonayaan means perpendicular. That's perpendicular or right angle. Particleska gariirkoogii baa wuxuu yahay up and down. Kor iyo hoos. Up and down. Gariirka particleska wuxuu tilmaamayaa inuu yahay up and down. This is the direction of wave. xaggana waxa u socda horay waxa u socda wavekii waveka directionkiisu waa horay directionka particlesku gariirayana wuxuu noqonayaa up and down. way waxaan leenahay sida xadhig soo qaato tusaale oo xadhigaagii kor iyo hoos u gundhiso gariirka xadhiga dhaqaaqiisu wuxuu noqonayaa meel la kor meel la hoos meel la kor meel la for example in real life example markaan tusaale u nimaadno marka waagu kuu bariyo ee guriga ka kacdo gogashii aad ku huruday marka aad rabto inaad dhas particles ka urgufto ama wax ku dul daadaatay aad ka dul qaado go'a ku yaala ama marada dul taala gogashaada waxa aad u qaadaysaa kor iyo hoos markaad urgufayso means dhaqaaqa particleski waxaad u gariirisay kor iyo hoos macnaheedu waxay tahay wixii aad rabtay inaad ka dul daadisaana wuxuu dhaqaaqayaa horay oo forward dhaqaaqii aad samaysay kor iyo hoos buu ahaa wixii aad rabtay inuu ka dul meesha ka dul dhaqaaqo ama ka dul daatana wuxuu dhaqaaqayaa horay means waxaa la odhanayaa marka transfer waveku waa waveka gariirka particlesku ay noqonayaan up and down or right angle or perpendicular to the direction of wave. way in another word si kala u sharxi kartaa waxaad leedahay particleska ama mediumka wavku dhex marayo waxay u gariiraan kor iyo hoos marka la tilmaamayo transfer wave. way transfer wavku waxyaabaha uu kaga duwanaanayo longitudinal waveki waxaa ka mid kuwani waxay sameeyaan crust means meel high peak meel sare iyo meel hoose waxay sameeyaan crust iyo trough meelna waa down meelna waa up maadaama gariirku yahay kor iyo hoos isagoo directionkii wavekuu socdaana ay tahay horay sida sawirka kaaga muuqata. way tusaale markaynu usoo qaadan haddaba waxaa ka mid qaabka biyuhu u dhaqaaqan marka dhagaxa soo qaadeed biyaha ku tuurtay ee biyihii ay sameeyeen heerka ama ay sameeyeen hirka ay sameeyeen waxa uu socodkiisu noqonayaa isaga oo gudbinaya tamartii oo dhagaxu soo gudbiyey ilaa ay hareeraha u gaadho biyuhu waxay u socdaan waxa tusaale waa marka water waveku waa transfer wave waxa ka mid haddii aad xadhig soo qaado ama spring aad u gujinayso kor iyo hoos spring wave baa la odhanaya waxa kale oo ka mid exampleska transfer waveska all electromagnetic wave are transfer wave. dhammaan chapterkiis aad ku soo martay fasalka saddexaad ee loo yaqaanay electromagnetic waveskaas oo dhan waxaa la odhanayaa waa transfer wave. waayo propertieskiisu isagana wuxuu noqonayaa transfer waveka kow waxaan leenahay particleska gariirkoogu right angle bay leeyihiin directionka wavekuu socdo laba isaguna waxay sameeyaan waxa loo yaqaano crust iyo trough means waxa kale oo ka mid propertieskiisa can be polarized isaga waa la jihayn karaa maadaama uu sameynayo vibrating up and down marka. way exercise baa kugu yaala pagekaas aad ka shaqayn doontaa insha allah haddii ilahay yidhaahdo. halkaa waxaa inoogu dhammaanayaa lessonkeenii koowaad ee uu lahaa chapterka 7 ee wavku halkaas inoogu dhan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala
miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii